sideen wax isu bari karaa aniga oo aanan u baahanin macallin ama cid kale. Su'aashan waa igu soo noqotay haddii aad doonaysa maanta xilliga lagu jiro inaad wax baratid qasab maaha inaad macallin haysatid, adiga ayaa isbari karo. sidoo kale qasab maaha inaad iskoolka aadid, waxaad helaysaa adiga oo gurigaada jooga inaad cilmi kasta baratid. maxaa yeelay waxaa lagu jiraa xilli technology ah, wax kasta ee aad doonaysana maanta haddii aad youtube-ka ka baarto iyagoo free ayaad ka helaysaa. haddaba marka waan ogahaye koorsooyin beecaan helayaa, youtube-kan ka heli karaa, laakiin sidee baan isku bari karaa? su-aasha halkaas ay ka taagan tahay. waxaan rabaa marka inaan kula wadaago 4 arrimood ama 4 tallaabo haddii aad qaadid waad isbari kartaa. tallaabada koowaad waa inay kaa go'an tahay, adiga ay kaa go'an tahay waxaad baranaysa, laakiin aadan cid kale ka koobiyeynin, cid kale waxay xiisaynaysa aadan xiisaynin, laakiin waa inay kaa go'an tahay. 2, waxa aad baranaysid qorshayaal iyo hadafyo u samee. hadafka waxaa la yiraahdaa waxa fog ee waxaasi markaad baratid aad rabtid inaad ka gaartid ama aad noqotid. tusaale kale haddaad English baranaysid sida aad ugu hadli lahayd markaad baratid ama aad ugu shaqaysan lahayd waa hadaf. sidaasna qorshayaal u samee subax kasta ama maalin kasta aad u samaysid. 3, joogtee waxa aad bilowday oo taa waxa la isku dhaaf. qof walba wuu bilaabi karaa, qof walba hadaf wuu samaysan karaa, laakiin in la joogtee ayaa la isku dhaafay. joogtee xitaa haddii aad xanuunsan tahay waqtigeeda soo xaadir, si kastaba ha noqotee isku day inaad fariisatid oo cashirkaasi aad qaadatid. 4, wax kasta ee aad bilaabaysid ama aad hore u bilowday ama aad baranaysid dhammaystir. imisa koorsaad gadatay oo qabyo ah, hadda dhammaystir. imisa cashir ayaad bilowday oo qabyo ah, hadda dhammaystir. imisa buug ayaad bilowday oo qabyo ah, hadda dhammaystir. waa taa inta la isku dhaafay. 4taa tilaabo haddaad qaadid waxaa hubaala macallin uma baahnid, adiga ayaa isbari karo wax kasta ee aad u baahan tahay.